baroordiiqdan oo lagu qabtay magaalada Amsterdam ee wadanka Holland ayaa waxaa soo qaban qaabisay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan ayagoona ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan wadankan Holland. munaasabadan baroordiiqda ayaa waxaa loogu duceynaya Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Riiso oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Dooxa ee wadanka Qatar kadib dhaawac ka soo gaaray xarunta maamulka gobolka Banaadir oo qarax ka dhacay. ayadoo sidoo kale dadkii munaasabada ka hadlana ay cambaarayeen qaraxii halkaasi ka dhacay isla markaasna ay u duceeyeen dadkii kale ee ku dhintay goobtii uu qaraxa ka dhacay. qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadan oo ay ku jireen dadka xubnaha ka ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan halkan isla markaasna dadkii ka soo qayb galay sidoo kale uu kamid ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf iyo xubno kale oo muhiim ah ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa intii dhimatay waxaan leenahay oo gudoomiyadiisa ugu horeeyo waxaan leenahay in Ilaahay samri iimaan u naga siiyo anagoo dhan ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah dadkaasi waxay ku dhinteen shaqo qaran waxay u shaqeynayeen qaranka markii la yiraahdo waa anagoo dhan oo isku jirna waa dalkii iyo dadkii iyo diintii marka maadaama shaqadaas ay ku dhinteen oo anaga ay noo shaqeynayeen anaga naga dhinteen taas inaan fahanno waa muhiim wadankiisa u shaqeeyo daacadnimo ugu shaqeynaya gacantiisa ka hadaran wuxuu ku mutaysanayaa jannadii firdawsa ilaahayki uu ku mutaysanayaa waqtiga yaryariisu wuxuu madax ka ahaa Allah u naxariisto oo duqa magaalada ka ahaa caasimadii qaranka Soomaaliyeed meesha xaruntii midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed laga unkay ayuu madax ka ahaa wuxuuna ku joogay wadadii ahayd midnimada ummadda Soomaaliyeed wadajirkeeda inay sidii u socoto dowladnimadeedii qarnimadii ayuu dhimanay Allah u naxariistay waxaa naga baxay nin qiimo badan ilaahay waxaan uga baryaynaa in reerkiisa uu uga bedelo khayr ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Muqdisho inuu ugu bedelo geesi khayr leh oo halka ka sii wada hawshii uu bilaabay oo uu waday anigoo ka faa'iideysanay fursadan waxaan kala rabaa inaan tacsi u diro una duceeyo dhammaan dadkii kale oo Soomaaliyeed oo ayagana halkaas ku dhintay oo qaraxii ku dhintay waxaana leeyahay Ilaahay naxariis jannaha wada siiyo dadkaas qof walba oo u yimaada ama ay kulmaan uu ka dareemayo qof kalsooni badan oo leadership leh oo maaragtay jecel inuu maaragtay dhageysto inuu maaragtay wixii uu kala hadlaayo uu qiimeeyo waxaan Ilaahay uga baryaa inuu jannatul firdaws ka waraabiyo familkiisa oo maanta aad u tabaayay xaaskiisa iyo caruurtiisa in Ilaahay qalbigooda u qaboojiyo iyo Soomaali weyn oo dhan meel walba maaragtay ka qiirootay mar walba waxay ahayd qof jecel oo dhahaysa muxuu ahaa hadii qurba loo dhamaado dalkan yaa u dhashay dalkan hadaan anagu waqtigeena iyo dhiigeena gelinin deeyaa wax u qabanaya marka waxay ahayd runtii qof aad iyo aad wadankeeda u jecel idinkaaga taxsiinaya geeridii murugada lahayd ka dhacday 24 July gobolka Banaadir taxsiida geeridaas waxay ahayd geeri runtii murugo leh oo dhibaato muxuu ahaa ummad wax dambiye inay wadankooda iyagoo dhisaayo oo u shaqeynayo ama siday wax ugu qabanayaan amnigoodii ka shaqeynayo halkan waxaan tacsi ugu dirayaa waxay tahay dhammaan ehelkii uu ka geeriyooday injineer Riiso iyo dhammaan howlwadeennadiisa ee ku dhintay ku geeriyooday halkaasi Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qabrigooda ha u waasiyo waxaan leeyahay injineer Riiso iyo dhammaan intii madaxdii la geeriyootay Ilaahay idin naxariisto Abdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro warbaahinta qaranka magaalada Amsterdam wadanka Holland.